iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta igala wareego nin wadi kara oo dhisan waxa weeye intaan wadanka joogana awalba saaxiib baan ahayn shaabaan wada cabaynay haddana sidii baan ahaanaynaa laakiin waxaan idinku bashaaraynaa nin fiican inuu idin yimi nin idin wadi karaa yimi oo aad maanta wax badanna ka kordhisan doontaan meelo badanna ka soo shaqeeyey runtii welweli maysaan waxaan filayaa inuu ilaahayna la garab galaan jecelnahay oo hay-addani waa hay-adda aasaaska u ah dowladnimada wasiirada madaxweynaha lagu sheegay madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaan prime minister waxaa ogolaanaya baarlamaan wasiirada waxaa ogolaanaya baarlamaanka haddana iyagiibaa wixii ay waa shaqaalada dirsaday korjoogteen bay ku sameynayaan waxaan u dirsanay ma qabteen mise ma qaban oo guddi walba wuxuu daba socdaa intaasoo meelo marka meeshan waa muhiim ha la ilaaliyo mar walba sharafka hay-adda in la ilaaliyo ayaa daruuri ah waa hay-adda ugu sarreysay inay naga xumaato ma rabno runtii waxaan rabaa anoo ku hadlayo magacayga inaan u mahad celiyo xogayaha oo aan aaminsanahay inuu yahay dadka farakutiriska ee Soomaaliyeed oo dalkan runtii usoo halgamay waqti badan soo geliyay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaanka golaha shacabka oo horeeyay gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad iyo labaad iyo habdhowrayaasha iyo dhammaan intii runtii taladeeda lahayd in aan sii qabto ama xilkaan runtii aan golaha shacabka ugu adeego waxaan rabaa kaliya halkaan inaan ka cadeeyo wanaagii uu soo sheegay xogayaha waa sii horumarin doonaa waa ku dul shaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa muhiim ah waxay tahay waxa loo shaqeynayo waxa way waa shacabka Soomaaliyeed kulligan waxaan nahay adeegayaal waxaan nahay dadkaas inaan u adeegno shaqada noogu muhiimsan waxay tahay sidoo sheegay golaha shacabka oo hay-adda ugu muhiimsan dalkaana in ay noqoto hay-ad isla markaasna ah gudato waajibaadkii golaha dadkan u adeegta inuu sidan inoogu dhaco isaguna uu sheegay inuu ku faraxsan yahay qofka positionka ka bedelaya inuu yahay qof wax lagu aamini karo baarlamaankan mar walba waxaan ka fikiraynaa qofka bedelaya inuu noqdo meeshii qofka wax soo gaarsiiyay qof ka sii wadi kara waan rajaynayaa xogayaha cusub iyo maamulkan inay isfahmi doontaan qof walba oo Soomaaliyana in baa levelkiisu gaarsanaya si daafurana wacyigelin cabdigelin oo hadlayo inaan wax wada ilaashano waa muasasada naga wada dhaxaysa shalay rag baa joogay maantana kuwa jooga berina kuwa kale oo anaga ahayn ayaa joogi doona sadarteed marka waxa ugu wanaagsan waxay tahay inaan ilaalino muasasadan Soomaaliya inay leedahay hadday document tahay hadday gaadiid tahay iyo hadday dhismo tahay inaynu wada ilaalishano dardaarankaas ay xogayihi horena ku dardaarmay Cabdiraxmaan waa aad u soo dhaweeyay oo garanayno kafaadeeda inuu leeyahay adhoor ku-xigeenka walaashayna ay si fiican u tilmaanto dowrkii gabdhaha sanadku ugu fiican yahay goluhu gudoomiye ku-xigeenka koobaadna waa gabadh adhoor ku-xigeenka koobaadna waa gabadh agaasime ku-xigeenada xogayna ku-xigeenada hadda iyada u doodaysa waan ku soo daraynaa hadii la yiraahdo